waxaan hambalyaynayaa xubnihii golaha wakiilada ee saaka u codeeyey shirgudoonka cusub anigana iigu doortay guddoomiye oo aan leeyahay kuwa ii codeeyey iyo kuwa iga codeeyey waa golo qura oo magac qura leh oo ah golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waanan hambalyaynayaa dhammaantood inta ay la egyihiin waxaan rajaynayaa in insha Allah tacaala waqti badan oo inaga lumay muddada labada bilood ee isriixriixu jiray aynu u gudi doono una abaal gudi doono dadweynihii muddada dheer milicda iyo bacadka inoo taagnaa dadweynihii inaga dhur sugayey inaynu isbeddel keenno insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa muddada labada bilood oo waqti badan inaga lumay oo hadday xukuumad noqoto iyo hadday xisbiyo noqoto iyo hadday golayaal noqoto midnaba aanay ka shaqaynin dantii caamka ahayd inteedii badnayd ee lagaga mashquulay hawlihii doorashada inay soo kabi doonaan ama gudi doonaan waqti badanna gelin doonaan sidii danta caamka loogu jeesan lahaa waxaan weydiisanaynaa dhammaan bulshaweyntiina soo dooratay annagoo uga mahadnaqayna doorashadii iyo isbeddelkii ay u codeeyeen inay noogu duceeyaan insha Allah tacaala in Ilaahay nagu garab galo waxaanu ballan qaadaynaa gol ahaan inuu noqon doono golahani golo dhammaystira golayaasha kale ee qaranka maanta hawsha aynu soo gabagabaynay way murkucan lahayd waxay ku sigatay inay murkacato badheer ka yimi xagga xukuumadda oo indhala'aana oo laynu ku qasbayey nin musharaxii inuu guddoomiyo oo isagoo musharaxa ninkii la tartamaya yidhaahdo waan kaa helay waxaase ilaahay mahadiya labadii oday qaranka ugu waaweynaa inay go'aan adag qaateen maanta mar baan yaabnay waan cabsoonnay doorashadii shirgudoonka oo waxoogaa aan dareennay dawladdu inay dabada ka riixasay dhinac kala waday haddana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin si fiican bay ku dhammaatay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa Soomaaliland baa maanta guulaysatay guushaasi inay noqoto calaamad taariikhda gasha maanta waxaa qabsoomay oo rumoobay rabitaankii shacbiga Soomaaliland shacbigu waxay u codeeyeen isbeddel waxaana yimi isbeddelkii ilaahayna mid khayr qaba inooga dhigo waxaa leeyahay shacbiga reer Soomaaliland riyadaa rumowday insha Allah waa ka dhalan doona isbeddelkii aad doonayseen waxaynu u baahannahay baarlamaan iyo xukuumad isjeegareeya oo isdabagala markaa baarlamaankani sidaa idinku codka ku siiseen wuxuu noqon doonaa mid waajibaadkiisa guta haddii Ilaahay yidhaahdo horta guushan maanta waa guul Soomaalidu soo hooyatay waa guul soo hooyatay waa dalkeena wanaagiisa weeye arrintan cid gaar u leh guushan ma jirto waa guul national waxaana aad iyo ugu mahadnaqaynaa aan ugu bishaaraynaa dadkii codka bixiyey inay si ku bixiyeen iyo niyadoodii shirgudoonkiina si ku dhamaaday ayaa Ilaahay maxamed oonay ka habaabin xildhibaanadii la soo doortay wixii loo doortay ee lagu codeeyey inuu shirgudoonkiina wadadii maray Ilaahay maadway subxaanahu wa ta'ala waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inaynu waqtigan wax ka badan isku helno laakiin hadda waxaan leenahay hambaliyaan